Bismillah, assalaamu calaykum. Waa idin salaam asxaabta meel walba joogtiin kusoo dhawaada channelkeena. Maanta waxaan sameysanaynaa macmacaanka ciida oo sahal ah, aad u fudud. Meeshaas waxaa ku haystaa 2 bakeeri oo milk powder ah, half cup oo caano ah, half cup oo sokor ah, 2 qaado oo ghee ah, subag ama butter. Waxaa haystaa loos pista iyo looska almond iyo heel yar haystaa. Dabka dhanka aadna dabka shidanayna. Waxaa rabnaa inaa alaabtaaneti 15 minutes 10 minutes ugu soo tuuraysa aaday sahal u tahay. Waxaa ka bilaabayaa subaga ku shubaya 2 qaado subaga ku shubay, markaasna wax yar dhalaalinaya. Kadibna waxaa rabaa inuu dhalaalo oo caanaha aan ku shubo. Marka waa dhalaalinaya saa u jeedin. Kadibna waxaan ku darsanayaa caanaha ku darsana subagaasaan isticmaalay. Marka insha Allah videoga coda kor saaraya asxaabta karaal noqda waqti xuna duubay oo habeen ah. Caanaha ku daraya, caanaha markaa ku darana waa walaaqaya maxaan lahaay ilaa 2-3 minutes walaaqaya. Markuu soo qandacana waxaan ku darsanaynaa maxaan rabaa wax yar inay ku kululaato caanaha. Waxaa ku darsanaynaa sokorta ku darsanaynaa. Sokorta waa soo shiita asxaabta, sokor shiidana loo baahan yahay. Sokortaada inay powder ahaato waaye. Marka waa ku walaaqaysaa si fiican iskugu dhex walaaqaysaa. Heelkana waa ku dara heel yar oo shiidan waaye asagana qaadada yarta waaye. Intaas si fiican iskugu walaaqaya. Haddana waxaa ku darsanaya caanihi powderkan ku daraya si tartiib ugu daraya koobkana idin tusay koobka loo ku shubaya. Marka caanaha marka si tartiib ugu daro koobkana idin tusay koobkan waa ku soo kordara insha Allah. Si fiican isku dhex gelinaysaa waa walaaqaysaa ilaa adeeg uu noqdo. Maxaan lahaay alaabtaan waxaan rabaa gacanta inaad ka dhaafin sida xalwada camal waaye. Aad gacanta ku haysid oo maanta dhan si fiican u walaaqdid ilaa uu iska qabsanayo. Marka saa u jeedin waa walaaqaya waa isku soo noqonaynaa. Marka xoogaa uu soo adkaado isla arkeena. Waa kana hadda uu soo adkaaday. Waa ku soo shubay koobka kalena sidaas ku wadaya ilaa uu isku keenmo uu isqabsado. Caanahan caadi ma ahan, waxa way macmacaan hindi barfiyaal aad u macaan yahay una easy u yahay u fudud yahay. Marka caanihi si fiican isku keenaya hadda saa u jeedin maasha Allah uu soo adkaanaya sidaas ku wadaya ilaa aan ka soo bisleeyo uu si fiican igu dhago oo ii noqdo wax oo isqabsanayo. Marka waa kaas asxaabta insha Allah ciid Ilaahay nabad ha noo gaarsiiyo soonka iyo salaadan Ilaahay naga aqbalo. Waa kana hadda uu ii soo adkaaday waa u jeedin si fiican isku soo dhigay bur camal oo noqday. Waxaasna caano bas waaye. Marka waxaa rabaa inaan gadiyo oo set gareeyo. Saxankaas waxaa marsaday wax yar oo subaga marsaday. Saliid waa marsan kartaa. Subagaas marsaday marka meeshaas rabaa inaan ku gadiyo ila arka walaalahay insha Allah. Saasal rabaa inuu kuugu yahay maasha Allah oo wax biyo inuu ka noqonal rabaa si uu hadhowto si fiican kuugu dhago. Qaadada marka asaas ku dhahaya oo ku set gareena shape-keeda. Marka hal dhinaca u leexiyo waa u jeedin marka waxaa laga rabaa macmacaan oo waxa waaye oo kisto butacsan waaye caata ma laga rabo. Marka saasa shape-kiisa u saxaya oo meesha ugu aruurinaya. Kadibna korkiisa waxaa ku qurxinaya pistagi iyo almond soo jaray waaye. Asaga marka si fiican ugu qurxinaya. Kadibna asaga waxaa ku sameynaa sorry asxaabta iga go'ay videoga. Waa kaasa macmacaankeena aad u sahlana oo macaan. I hope inaad ka heli doontiin insha Allah. Try gareeya aad u macaan yahay sidaas iyo oo kaleeto markaa u samaysatid maasha Allah aad u sahal u yahay u macaan yahay. Markaan soo jaraa iga baxda asxaabta karaal noqda. Waa kaasa marka saa u aragtiin aad u qurxan yahay insha Allah. idinkana waxaa idin rajeynayaa ciid mubaarak ciidul caafiya insha Allah. Assalaamu calaykum asxaabta aad u mahadsantiin.